shirweyne ay yeelanayso beelweynta warsangeli ayaa waxaa lagu dhawaaqay in 10 bisha June lagu qaban doono magaalada Xingalool. waxaa warkaasi magaalada Baran inooga soo diray wariyaheena Saciid Cabdullaahi Tiicha. shiralka Al-Nasr ayaa saaka aroornimadii waxa shir ay si wada jir ugu qabtay suldaanka guud ee beesha Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamed Cali Shire cuqaasha isimada iyo nabadoonnada aqoonyahanka qurba joogta iyo haweenka beelweynta warsangeli. shirkan ayaa waxa ujeedada loo qabtay ahayd in shirweynaha beesha ay yeelanayso lagu dhawaaqo kaasoo dhacay 15 bisha 2014 kana dhici doona degmada Xingalool ee gobolka Sanaag. shirkan ayaa waxa furay suldaanka guud ee beesha Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan. waxaan ugu mahadnaqayaa odayaashii shirkan muddada inta la soo gaarsiiyay. waxaan u maanayaa shirkan wala wada wanayaa waqtigii uu bilaabmay wuxuu ahaa 22 bishii 3aad 2014. maantaas ugu horreysay shirweyne la sugu yimaado ورتي بدن برمانتها كسوق يقشي كدب وجهي سلوات وكبري إن قد بصار قد ذاتي مدفر بدن بينها والرهاشيوين وهرين وسوي ماضو كدب ما يحلى مقعدي وحيل واتكي قد ككون تطبيق وانتنا وغير كمذا هو ضمرين ديجان كورن مقالك السنة وصومرين أفتي بيك السوقادين ولا سكر عاي إن شركة لوبة هي كدب ما يحكوا صلاتين الله في مقالة برن markay baran ku soo laabteen halkaas ka sii ambaqaa beeraha deegaanka shirkaas oo muddo la waday odayaashaas ku hawlayaan ilaa 3 bilood hadda soconayay wala fagurayay odayaashaasina waqtiga ay soo gaarsiiyeen maanta waxa la isla gartay in aan waxba warsaneen oo uu yahay maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay oo shirkaasi ku soo afjarmo in lagu qabso deegaan ka mid ah deegaamada dadka وكانت كوغران ولو باقي مقالة حنقلول تاريخي ولا الشيء وقتي يوم بايرك ووقتي أنا ودعسنا إنه لا محك برينا من الله رحمة خير ربنا وحسيدو كلو يجونا كهالي عقاشة يهوينك نبضونا يقرب جوكت أقويانك بيش وسنجلي ومنطقة الشركة سمعتها وحقالين بيشي سي أبو صدحات والصومر يدقان كسيدي اللي نيشي si dadka loo wacyi-geliyo dadku ogaadaan oo maaragtay wacyi-gelin loogu sameeyo maadaama uu 3 bilood marayay marka hadda waxa la yiri shirki waa in marka meeshuu ka noqon lahaa waqtigiisa la sheego caalamkana loo sheego waxaanu ugu baaqaynaa dadka mantaqada degan dhammaan gudo iyo dibadba in shirka bisha 6 laga dhigay Xingalool waagi hore waxaanu lahaan jiray وديارنا إنه كدقنا جوارد فرضو مقعية كلا هاي هذانو بلوي توسنجلين هاي بوشنا أو أسعارنا هاي وأنا كود شوقنا ذات كدبدا وحانو رنا أيام حين فنين يسوفولا وأنا يسوون مادنو ماشى لا أمري أو سلطان جود يباسو iyo guurtidii iyo ragii shirka wadaya calaamadiyay sida aad ogtihiin shirkan inuu mid qarsoomay yahay mid khayr la qabsoomayana inuu yahay Ahmed Sheikh Saalax baa yiraahday dadka magaalada jooga waa ugu weyn 3 bilood maalin kama baaqan halka waxay ka muuqataa wanaaga iyo walaaltinimada iyo wanaaga ka jira inuu shirku qabsoomo oo shaqeeyo tadan dib lahayn بس جهل ولا التنمر يونا قولا نول بايلها كوابور dadka iga dibadda jooga aan waajibtaa hadana waa ugu gudbinayna horena waa u nagay idinna la gudbiyo waliba sabaha waxay yihiin dalka dadkii beriga hore ka tagi jiray oo qurbaha gali jiray waa soo shaqeyn jiray haddii saacadaada ama tigirka soo bixinaysa kaaga qaalisay ummadda mantaqada u dhalatay ama mantaqadoodan kaaga qaalisay بحواجة يدورك على الشيء هاي أما دولار هنقدر أما جنيه هنقدر وحدون هنقدر لكن هذا وحكو شيء كلا يعني وحكام ربطه أنا بدي هذا نشوي حبيبي ربنا ما أعرف كلنا قربات شو وحبقين لك على الله سعيد عبد الله تلفزيون عالمي صومالي channel مقالة بران